كورن قف أفر بلود كراديناي أو رئيسي كقاعدة كصوّعي صبح على السي لحدي أما صح لبيته ممكن صبح نمو هذا ولي كعين قارد كلا كنوشة أسينا قارد كلا كنول هي أنتو كصوّع أيو كيوري مقال كان كادوبي وان كان سلقريي سو كلنا مسودين دونو ساسنا تلاف كلا قدمي qoraal yariiso soo dhigay iyo sawirro oo soo dhigay oo saacad gudaheed ku jireen Facebook ayuu ku tuuray wixii oo dhan gabadha oo wareysanaya waa gabar ka soo shaqeysay Snapchat Meta Google Security Cyber Security ay ku takhasustay jaamiciyad waa gabadha Soomaaliyeed shirkada aasastay shirkadaas waxaa lagu gatay 95 milyan ka waran hadda shirkada ay leedahay oo No Hack la yiraahdo shirkadeeda marka maanta waxay la shaqeynaysaa bangiga Soomaaliyeed ee EBS waxay tiri 2030ka 100,000 oo Soomaali ah ayaa shaqo heli doonta Soomaaliya oo security-ga. No Hack and IBS Bank will be working together, inshallah by 2030, 100,000 tech jobs in Somalia. Somali security-ga marka maanta gabar u baahnaay ayuu helay. Gabadha Soomaaliyeed waxaan ognahay in gabar kale ayadana saas amal ah Soomaali soo dhaxgashay qurbo joog ahayd dad jecel isku bedeshay xijaabati gabadhaas waxa xasuusitiin hodan naalay ayaa la dhihi jiray Allah u naxariistay gabadha Soomaaliyeed jecel intii u qabto dalkeedii ay soo degtay xijaabati xijaabkii ugu fiicnaa dadkeedii ay dhaxgashay dalkeedii ay soo duubi jirtay walibana markaas qatar badan ayaa jira dalkeeda way imaatay ayadoo jecel ay soo degtay wadartii alle ayaa u timid marka gabadha Soomaaliyeed waa la waani karaa laakiinse wiilkan sida uu jejesay waa si qalad ah gabadha Soomaaliyeed waxay artaa marka in ay khibradeeda iyo sidoo kale way argeeda in ay keento Soomaaliya 7 sano ay ka soo shaqeynaysay oo khibrada u lahayd shirkadaha waaweyn ay ka soo shaqeysay gabadha Soomaaliyeed marka khibradeeda dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin in ka faa'iido lahayn wiilkan Soomaaliyeed wuxuu kula kacay fal in bacaadeen wuxuu soo galay Facebook-giisa gabar fanaanada ah gabadhaas markuu soo galay sawir soo galay sida gabadhan oo kale waa laga falceliyay asaga ayaa difaacay qoraalkan u jeedin wiil wariyaha ayaa soo qoray wuxuu yiri dadku waxay dhihi doonaan wiilkii culimada wareysan jiray maanta wuxuu soo galay fanaaniin inuu wareysto wanu difaacay waa kana commentigiisa wiilka marka degdegna ma ka ahayn laakiinse waxay ka ahayd meeshaas gabadhan Soomaaliyeed in oo yacni sumcadda uga ciyaaro wiilkan Soomaaliyeed asaga ayaa wuxuu leeyahay sumcadeeda ayaan dhowrtay gabadhana sumcadeeda ayuu ku ciyaaray gabadhan ayada siisa waqti 4 bilood sugayay markay siisana sidaan ay ugu ciyaaray gabadha uu dhihi karay walaal soo xijaab gabadhan way soo xijaabataa markaste markay Soomaaliya la joogto way xijaabataa oo u jeedin hadda muuqaalkan oo kale waxay la joogtaa dad Soomaaliyeed marka maxaa u diidayo inuu yiraahdo walaal aan waxaan soo galiyaa culimadan soo galiyaa dad waaweyn ay daawadaan soo xijaabo maxuu u dhihi waay laakiinse uu ku daawaday wuuna soo galiyay kadibna uu ku jeejeesay marka wiilkan Soomaaliyeed inuu raali gelin bixiyo waa wali uu ku taagan yahay inuu gabadha raali geliyo wuxuu leeyahay go'aan waxaan qaadanay wada jir ah inta wax gabadha uu ku yiri ma soo gelinay marka qalad waa qofka inaad ku xadgudubtid adigoo waliba aan raali gelin oo raali gelinay kaliya dadka qaar oo commentiga soo bixiyeen marka waxa la leeyahay dadka qaar oo leeyihiin maxaa u difaaci weysay oo sidoo kale u jooji weysay wareysi gabadhii qaawaneed ee fanaanada ahayd oo sidoo kale bulshada aan wax u kordhinaynin ka sheekeynaysa kaliya fankeeda marka sidoo aragtiin commenti ku soo qora fikradii